tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa soo badanaya cabashooyinka bulshada maanta waxa ay dul taagan tahay halbowlaha dawladnimada Soomaaliland oo ah ciidanka halkani waa aaga Tukaraq waxa ay ciidanku jiida hore dib uga soo baxeen masaafo gaadhaysa 5 kiiloomitir waxa ay jareen dhammaan isu socodka wadada halbowlaha oo ay isku xidha guud ahaanba Soomaaliland cabasho ay ka tirsanayaan maamulkooda oo ugu sareeyo madaxweynuhu waxa ay ku hanjabeen inay guud ahaanba soo banayn doonaan jiida hore ee ay joogaan haddii aan wax laga qaban tabashooyinkoodan waxa ay sheegeen in mushaharka ay qaataan oo ah $100 aanu ku filnayn kirada 2 qol oo qoysaskoodu ku jiraan haba sii joogto manfac kale waxa ay sheegeen in marka ay dhaawacmaan aanay helin daryeel caafimaad isbitaalka ugu dhowna uu yahay magaalada Hargeysa oo u jirta masaafo dhan 600 kiiloomitir sidoo kalena kuwooda ku dhinta dagaalada laga goosto mushaharaadka oo aanay helin wax xuquuq ah qoysaskii ay ka baxeen waxa ay tilmaameen darajooyinka ciidanka in la siiyo dadaan Hargeysa dhaafsiisnayn kuwaas oo aan qaarkood weligood iman faranta ciidanka waxa fashil ku soo dhamaaday isku day ay sameeyeen hoggaanka sare ee ciidanka militariga kuwaas oo doonayay inay xaaladda la dejiyo waxaanay dalbadeen inaanay arintooda gali karin ciidan ka ahayn madaxweynaha isku soo wada duubo arrintan ayaa ah mid culus gaarsiin karta amnigii iyo kala dambeyntii Soomaaliland